وري عبد الله حسين درويش oo ah wariyay TV-ga caalamiga Royal TV isla markaana ah gudoomiyaha ururka Soldier ee saxafiyiinta Soomaaliland u qaabisa gobolka Sanaag ayaa xalay tababar 10kii barkii habeenimo rag dhalinyaro ah oo madaxa soo duubtay oo ku hubeysan burariyo tooriyo wariye Darwiish oo hortaagan xafiiskiisa isla markaana waqtigaasi ku hadlay telefoon ku soo qaaday weerar waxaan hareeraha kala galeen burarkii ay wateen waxaana wariyaha soo gaaray dhaawacyo intooda badan madaxa iyo wajiga ka gaareen wariyaha ayaa loo cararay isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo sidoo kalena kooxdii hubeysneed ee wariyaha weerar ku soo qaaday ayaa boolisku mid ka mid ah gacanta ku dhigeen kaasoo maayarka magaalada Ceerigaabo adeer u yahay oo walaalkiis dhalay waxaana ninkan la qabtay boolisku ku xidhan saldhigga dhexe ee booliska Ceerigaabo arintan ayaa daba joogtay kadib markii dhacdadan hal habeen ka hor maayarka magaalada Ceerigaabo uu wariye Darwiish ka soo saaray guriga martida ee magaalada Ceerigaabo taasoo aan la garanayn sababta maayar ku kaliftay waxaana taa ka dambeysay isla maalinimadii labaad wiil ka mid ah wiilasha maayarka magaalada Ceerigaabo u dhalay in wariye Darwiish telefoonka uga soo hanjabaada wariye Darwiish uga timid wiilka u dhalay maayarka magaalada Ceerigaabo ayaa waxa uu gaarsiiyay madaxa CID ee booliska magaalada Ceerigaabo waxaana waxyaabahaasi marag cad u yihiin in weerarkii xalay lagu qaaday wariye Darwiish in laga soo abaabulay guriga maayarka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ugu horeyna aynu eegno codka wiilka uu dhalay maayarka magaalada Ceerigaabo oo wariye Darwiish uga hanjabay telefoonka iyo sheekadii dhex martay هيا يا حاجة معانا ما نقول بدك كسر قرية شدير غير قرية تمام شهر هراي عدوان كاشون معانا هذا الكوك اللي فيه حاجة هذا حاجة واحد يا وضعك أنا ضحك قرية شد ما نقول بقى ده واقوم ورا يا واقوم أنا ما أبغى هذا هذا وايو وحلا قرية ما كرنا يا نقول ورا ذاك قرية وحلا قرية ما كرنا يا نورنا ما أوجد وأنا كاشون ودكرون ويدي هذا كشلنا ويدي محرم أنا يا باوس إيه يقول على وليده si kastaba ha ahaatee ninkii dhaawac u geystay wariye Darwiish oo saldhigga ku xidhnaa ayaa maayarka magaalada Ceerigaabo uu kala baxay saldhiggaasi lamana garanay sababta uu mas'uulkani ninka dambiga galay uu kala baxay saldhigga Ceerigaabo sidoo kale hay'adaha sharciga ayaan ilaa hadda wax talaabo ka qaadin ninka dambiga geystay ee lagala baxay saldhigga